galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaan idin leeyahay oo idinkaga mahadinaya ka qaybgalka aad ka qayb gasheen munaasabadan barnaamijkan doodii laga dooday dib u eegista qodobadii qaar ka mid ah dastuurka runtii madaxweynaha maanta waa jeclaa inuu nala joogo laakiin waa u suurtageli way sababta wafdi ayaa la joogay marka howlo kale oo qaran oo ku jira marka anigu ii soo wakiishay inaan xafladan gunaanadka ah lagu soo gunaanadayo barnaamijka inaan kala soo qayb galo anoo hadalkan idinku sii dheereen kolley waxaan rajaynayaa doodii maalmahan aad ka qayb gasheen in waxyaabo badan oo afkaar ah oo idinka maqnaydna inaad ka ogaateen sidoo kale aad fursad u hesheen marka sida aad wax u rabtaan iyo waxyaabaha isleediin fikir ka maqnaa buu ahaa waxyaabihii la idiin soo bandhigo idinkana aad gudbisateen kolley waa jiraan oo xildhibaanadii iyo wasiiradii ugu horeeyey wasiirka arrimaha dastuurka doodihii ay hogaaminayeen marka waxa weeye waa kolley wixii afkaar aad gudbisan lahaydeen waa aad gudbiseen waa ku jiraa ayaguna waxaan rajaynayaa wafdigu marka waxyaabo badan oo ka maqnaa kolley inay kala kulmeen halkan oo ay dib markay u noqdaanna ay ku darsan doonaan marka waxyaabaha hawsha ay wadaan sidoo kalena afkaar kalena oo taayada ka duwanna kolley waxay ka soo bixi doontaa inkastoo waxa inta badanba ay isku mid wada noqon doonaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan afkaartooda baahidooda rabitaankooda isku mid uu yahay kolley marka aragtiyo wixii halkan ka soo baxay aragtiyo ka duwan gobolada wixii gobolada kale ka soo bixi doonaan marka intaasna waxaa loogu talagalay in fikir la isku darsado maadaama in badan lagu celceliyay waxa laga shaqeynayo ay tahay dastuurkii uu yeelan lahaa qaranka Soomaaliyeed kii federaalka ahaa dastuurkana sida hore loo sheegay dadkii goor ay u sheegeen uu yahay ereyga dastuur marka la macneeyo la yiri waxa lagu waa heshiis bulsho marka bulsho waxay raali isaga yihiin marka runtii aad baan uga mahad celinaynaa dawladda federaalka iyo xubnihii guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dib u eegista dastuurkaba fursadii iyo garashadii ay garteen marka in socdaaladan tala wadaagga ah inay gobolada wadanka dalka ay ku soo maraan marka runtii fikradaas aad baan uga mahadinaynaa inkastoo waqtigu aan iska sii jeclaan lahayn intaan inuu ka sii dheeraado oo waxa weeye qof walba marka uu fursad u helo waxyaabo badan oo uu rabay inuu ku darsado laakiin kolley waxaan rajaynayaa muddadaas 4 maalmood ah in aan muddo nagu filan inay noqotay insha Allah ta'ala marka wixii kale waxaan sugaynaa qormooyinka dambe dastuurka lagu daro wixii afkaar halkan laga helay marka insha Allah lagu soo daro marka hadalka ma sii dheeraynaayo madax kale iga dambayso marka insha Allah waxaan ku wareejinaa microphone-ka Dr. Ali Ismail isaga ayaa marka noo xiriirin doona barnaamijka inta kadib. Assalaamu calaykum.